السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. هذا بلدي سلام يا ولا ليال دمانتين إنا عفوا قطبة درجينا يا كسو دوادا 10 تضباط برشاد علمية سيكولوجيا كون سيال بقول يا فرتي أي دولة فرانسيسكو waxay ka codsatay kasmanafeed loo yaqaanay Alfred Binet inuu baaritaan ku sameeyo ardayda dalka Faransiiska. baaritaankaas waxa laga damacsanaa waxay tahay inuu soo saaro ardayda Faransiiska waqtigaas wax baranaysay caqabadaha haysatay iyo caqabadaha ay mustaqbalka la kulmi doonaan. cilmi baaris caynkaas ah inuu sameeyo ayay dalka Faransiiska dowladdiisu ka codsatay ninkaas saynisyahanka iyo kasmanafeedka ku takhasusay ee Alfred Binet. Alfred Binet waxa uu ogaaday in caqabada ugu badan ee ardayda Faransiiska waqtigaas ay la kulmayeen inay ahayd kala duwanaanshiyaha dhanka shakhsiyadda iyo garaadka. si marka taas uu caddeeyo ayuu wuxuu sameeyey cilmi baaris waqti dheer socotay oo uu markaasi ardayda su'aalo ku weydiinayo. su'aalaha ardayda la weydiinayo laba ayaa loo qaybinayay. qaybta koowaad ardayga waxaa la weydiinayay su'aalo isaga ku da' ah. haddii su'aalahaas uu ka jawaabo oo uu dhammaantood ka wada shaqeeyo waxaa loo gudbayay qaybta labaad ee su'aalaha taasoo arday walba la weydiinayay su'aalo qof asaga ka da' weyn loogu talagalay. tusaale ahaan haddii arday 8 jir ah su'aalo la weydiiyo oo su'aalahaas uu ka jawaabo waxaa la weydiinayay su'aalo loogu talagalay qofka 10 jirka ah si markaasi loo ogaado bal in shakhsiyadiisa qofnimadiisa iyo garaadkiisu in ay markaasi qofkaasi isku mid yihiin ama inay kala duwan yihiin. waxaa u soo baxday markaa in caqabada ugu badan ee ardayda wajahaan in ay tahay dhanka garaadka kala duwanaanshiyaha iyo qofnimadooda. ardayga marka tusaale kale su'aalaha uu ka jawaabo cilmi baarista waxaa lagu soo qorayay in qofkaani uu jiro maalan 8 sano laakiin uu leeyahay caqliga qofka 10 jirka ah. qofka 10 jirka ahne su'aalihiisa markuu ka jawaabo waxaa la weydiinayay su'aalaha loogu talagalay qofka 12 jirka ah. haddii uu ayaga ka jawaabo waxaa la oranayay ardaygaani da ahaan 10 sano ayuu jiraa laakiin caqli ahaan waxa uu leeyahay caqliga qofka 12 jirka ah. Louis Terman oo isaguna ahaa kasmanafeed u dhashay dalka America ayaa cilmi baaristii uu sameeyay Alfred Binet soo qaatay si uu markaasi asaguna ugu dabaqo America ardayda markaasi wax ka baranaysa waqtigaas. laakiin Terman qaabka uu isticmaalay Binet cilmi baarista qaab ka duwan ayuu asagu u isticmaalay. Binet waxa uu cilmi baaris ku sameeyay dhanka da'da laakiin Terman isagu waxa uu sameeyay dhanka IQ-ga in ardayga markaas su'aalaha la weydiiyo. tusaale ahaan Terman waxa uu sameeyay in ardayga marka su'aalaha la weydiinayo su'aalahaasi inay ugu horeyn da'diisa markaasi ay la mid yihiin. haddii uu ka jawaabo waxaa la weydiinayay su'aalo qofka asaga ka da'da weyn loogu talagalay. haddii iyaga uu markaasi ka shaqeeyo wuxuu sameynayay Terman in qofkaani caqliga saxda ah ee uu leeyahay da'da loogu talagalay inuu u qaybiyo da'da saxda ah ee ardaygu markaa jiro kadibna 100 lagu dhifto. tusaale ahaan arday 8 jir ah ayaa waxaa la weydiinayaa su'aalaha qaybtooda koowaad ee loogu talagalay arday da'diisu ay jirto 8 sano. haddii uu su'aalaha ka shaqeeyo waxaa la weydiinayay su'aalo
loogu talagalay qofka 10 jirka ah haddii uu iyagana garto waxaa leeyahay qofkani caqliga 10 jirka ayuu leeyahay sidaas darteeda 10 ayaa waxaa loo qaybinayaa da'da 8 oo ardaygu marka uu jiro waxaa soo baxaysa 1.25 kadibna 100 baa lagu sii dhifanayaa waxay noqonaysaa markaasi 125 waxaa soo baxaysa markaasi cilmi baaristan uu isticmaalay Lewis Terman in dadka garaad ahaan IQ-goodu uu gaaro 130 ama wax u dhow inay yihiin dad aad u xariifin ah halka haddii qofku uu 110 ilaa 90 IQ-giisa uu soo gaaro lagu tilmaamayay qofkan inuu yahay caqli dhexdhexaad ah inuu leeyahay sidaas oo kale haddii qofku uu ka hooseeyo 90 IQ-giisu waxaa la oranayaa qofkani waa qof markaasi baahiyaha gaarka ah qaba imtixaankan marka Lewis Terman uu ku sameeyay ardayda Amerikaanka ah boqolkiiba 90 ilaa iyo boqolkiiba 10 inta u dhaxaysa aad baa loogu dhacay halka 90 waxa ka hooseeya dadku ay ku wada baasayeen oo markaasi jawaabaha ama qiimeynta markaasi ka soo wada baxayeen halkan waxaa nooga soo baxaysa qofka shakhsiyadiisa iyo qofka garaadkiisu inay aad u kala duwan yihiin mar walba waxaa marar badan la isweydiinaya cilmi fara badan laga sameyn jiray midkee ayaa wanaagsan caqliga qofka mise shakhsiyadda ayaa caqliga ka wanaagsan baaritaano badan oo markaasi dad aqoon-yahano kasmanafeed ah ama cilmiga psychology ku takhasusay ay soo bandhigeen waxaa la isku raacsan yahay in shakhsiyadda qofku ay ka muhiimsan tahay garaadka oo waxaa jiri karta qof shakhsiyad fiican leh laakiin caqliyadiisu ay markaasi kaamil aysan ahayn dadka sida uu kula macaamilayo iyo habdhaqankiisuna qofkaasi ay tahay mid aad u wanaagsan waxaa sidaas oo kala dhacda qof aad u caqli badan inuu dadka ku tunto oo caqli badnaantiisa dadka uga faa'iideysto maadaama qofkaas shakhsiyadiisu markaasi aysan wanaagsanayn cilmi-baarisada la sameeyey ee ugu caansan mowduucan waxaa ku jiro cilmi-baaris la yidhaahdo 5 sifo ee personality-ga sifooyinka ugu waaweyn ee qofka shakhsiyadda fiican lihi aqoon-yahanadu waxay ku tilmaamayaan qofku inuu yahay qof bulshaawi ah oo qof bulshada jecel ku dhex jirkooda iyo ka shaqayntooda inuu markaasi qofku yahay sidaas oo kale sifooyinka lagu tilmaamo shakhsiyadda fiican waxaa ku jirto qofku inuu yahay qof hal abuur leh adkaysi leh dabeecad leh sidaas oo kale inuu yahay qofku qof markaasi aad u degan oo dadka markaasi kula macaamil karaya sifooyinka ay soo bandhigeen cilmi-baaristani ee shakhsiyadda fiican qofka leh lagu garan karo waxaa ka mid ah qofku inuu yahay qof howlkar ah oo dadaal badan walidaalika waxay ku leeyihiin qofka uu ka dadaal badan yahay nolosha ee ka howlkarsan yahay waa ka wax soo saar badan yahay sidaas darteeda waxay ku taliyaan aqoon-yahanadu qofku inuu caqligiisa korintiisana uu xoogga saaro sidaas oo kalena inuu xoogga saaro qofka shakhsiyadiisa oo labadaasi markaasi aysan kala harin badanaa caqligu waa ka noo horseeda inaan dhibaatooyinka xalino waa ka noo horseeda inaynu waxyaabaha nolosheena ku xayndaaban aynu aad u fahanno markaynu wax baranayno inaynu waxbarashada meel fiican ka gaarno ayuu caqligu naga kaalmeeyaa laakiin shakhsiyaddu iyadana waxay naga kaalmaysaa inaynu noqono dad la aamini karo dad hadalkooda iyo ficilkoodu ay israacsan yihiin dad naxariis iyo habdhaqan wanaagsan leh badanaa bini aadamka marka la macaamilayso marar badan ayaad arkaysaa qof da ahaan yar
laakiin haddana garaadka qofkaa saarani iyo xigmadda qofka ilaahay uu ku beeray uu la mid yahay qof sida markaasi 40 jirka ama 30 jirka qofkaasi inuu yahay. hogaaminta iyo maamulka iyo waxyaabaha shaqooyinka la xiriiranay waxyaabaha ugu badan ee markii qofka loo dhiibayo laga qiimeeyo garaadka ku jiro. sidaas oo kalena shakhsiyaduna waa la mid. haddii labadaas marka qodob uu qofku xooga saaro badanaa qofku waxaasi wuxuu noqdaa qof nolosha meel fiican ka gaara. maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday dowladda Cabbaasiya boqor ka mid ahaa boqorada dowladda Cabbaasiya in uu markaasi soo booqdo wasiirkiisa maaliyadda oo markaasi xanuunsana. gurigii ayuu imaaday. wasiirkaasi markuu guriga imaaday ayuu wuxuu bilaabay in mid ka mid ah ilmihii wasiirku uu dhalay inuu ku jejeeso oo markaasi uu dareensiiyo bal awoodda boqorka. inankii yaraa ayuu wuxuu ku yiri boqorkii, wiilyahow, guriga aabbahaada iyo guriga boqorka baryaa wanaagsan. isagoo markaasi dareensiinaya in guriga boqorku ka wanaagsan yahay guriga aabihiisa. laakiin inankii wuxuu ku jawaabay su'aal markaasi boqorkiiba ka yaabisay oo wuxuu ku yiri guriga aabahayga ayaa ka wanaagsan guriga boqorka sababtoo ah maanta boqorkii yaa joogaba guriga aabahayga. kelimadda uu ninkaa yiri wasiirkii iyo markaasi boqorkii way ka yaabisay. wuxuu boqorkii go'aan ku gaaray markaasi inankaa yar inuu asagu wato oo uu markaasi uu koriyo. inankaa yari mustaqbalkii dambe waxa uu noqday wasiirkii ugu saamaynta badnaa dhanka dhaqaalaha dowladda Cabbaasiya. waxaana loo yaqaanay Cabdifitaax Qaaqaan. markaad baarto wax badan boo xog baa ku soo bixi doona. inankaa yar da'diisa iyo garaadkiisu aad bay u kala duwanayd. waxaa la sheegaa in niman odayaal Soomaali ahi maalin ay ku shireen meel geed ah iyagoo markaasi xaajo markaa ku taagnayd oo ugub ah xalinaya. marka arrintii ay isku soo hadal qaadeen ayuu mid ka mid odayaashii waxa uu soo jeediyey in xaajadan niman odayaal ah oo guddi ah loo xil saaro si ay markaasi u xaliyaan. inta kale soo hartayna markaasi inay bannaanka ka taagaan inta la xalinayo markaasi xaajadan. laakiin geedkay ku shirayeen in yar baa dushiisa saarnaaba ku ciyaarayay oo warkoodu maqlay. markaa buu geedkii ka soo dhawaaqayo waxa uu yiri xaajada niman odayaal ayaa loo dhiibinin niman cuqaal ah oo waxgarad ah ha loo dhiibo. guddigii loo xil saaray xaajada inay xaliyaan wiilkaasi qayb buu ka ahaa. soo mararka qaar da'da qofka iyo garaadkiisu qofka aad bay u kala duwan yihiin. haddii aad fahamtid in shakhsiyadaada iyo garaadkaadu ay kala duwan yihiin oo laga rabo inaad shakhsiyadaadana aad si gaar ah u tarbiyayso, caqligaadana si gaar ah u tarbiyayso, haddii taa aad fahamtid nolosha wax badan ayaa kuu fududaanaya. laakiin fahamka ugu horeeya oo ah inuu qofku og yahay in labadaasi kala duwan yihiin ayaa inagu yar. haddaba midkii ayaad is leedahay qofnimada iyo shakhsiyadda waa muhiimsan tahay? ma shakhsiyadda ayaa ka muhiimsan caqliga mise caqliga ayaa ka muhiimsan shakhsiyadda? bal aragtidaada iyo fikirkaada la sheer garay insha Allah haddii la yiraahdo. baa idin salaamaya.